saddexdan qodob ee la soo jeediyay halkan waxa la isugu yimid in qodobadan ay soo dhigtay akaadimiyadu qof waliba wixii ay la tahay sida looga baxayo tan laga soo jeediyay inta la sheegay ee dhaliilih ee ama akaadimiyadu soo taabatay ama cid kale ka hadashayba waa dhibaatooyin inala socday intii qarankeenu jiray Soomaaliland ee dhowr sanadood tan dimuqraadiyadda waxay la tahay qof waliba dhaliisha dimuqraadiyaddii wali wax looga dhimayay inkastoo gurmadu ku guuleysanay haddana way muuqataa wuxuuna canaanama inuu kaga baxna maahe waxa wanaagsan in qof waliba wixii ra'yigooda u soo dhigo horta markaad dhinaca ka eegto dal aan cid tiraafsanayn ka soo doogay gobonnimadoon iyo jabhad muddo intaa leh dhibaatadiisa dhaqaale leh dhibaatadiisa bulshada oo ay ka mid tahay Soomaaliland maanta dadka ku nool boqolkiiba 70 inay daayar tahay u baahan mustaqbal iyo shaqo iyo nolol xaaladdu ku adag tahay haddana deganaansho iyo dimuqraadiyad iyo doorashooyin inta kaga baxay doorto cusub inuu isqalbi jabina ma aha waa guul weyn gaarnay waxa garab taala yeynaan oranin guul baynu gaadho oo saxanahay wixii inaga dhimanna aan saxan dimuqraadiyaddu halkay ka soo bilaabtaa waxa la arif ka bilaabma dimuqraadiyadda asaaskeedu waa qofka waayo waxa la siiyay dadku inay xilliyaal go'an mudaysan awoodda madaxdooda ku bedelaan ama barnaamijyada doorasho la qabtaa dadku waa inay waqtiga hubiyaan inay bedeleen dhaliilihii horgeeji marka qofka wax dooranaya haddaanay u caddayn wuxuu dooranaya oo ay ka qaldan tahay dee ma hagaagaya wuxuu doortay maalan xisbiyeedku in badan xisbiyeedu jiray xisbiyada dhibaatooda way leeyihiin dimuqraadiyaddu xanafteeda ay leedahay xanuunkeeda ay leedahay ma jiro wax yacni lagu helo si dhib yar oo smooth xisbiyadii waxaan isweydiinaynaa xisbiga qofka maanta xisbi registrada ee fee bixiya ee mabda aaminsan ee ka hirgelinaya uu yiri waayo inta aynu xisbiga maqli jiray xisbiyada iyaga lacag loo doontaa dadku ma marka xisbiga galaan waxay maxaan ka soo dhaafay waa dhab xisbiyada qabyaalad inta badan u dhisay waanu isla wada qirsanahay inaanay qabyaalada naafacayn haddana kama guuro halkay sartu ka kulmaysa waa halkaa taana waxay ku xiran tahay in mustaqbalka aan ugu talagalno in xisbiyada mabda iyo ideology lagu raaco oo laga guuro reer laakiin waa marxalad yaani muddo la socon karaysa saameynteeda marka waxaan leeyahay horta waxa baatay dadka inaynu u diyaarino maskaxda xisbiyada maxay tahay maxay doonayaan waliba daayirta waa qodob waxaan qabaa marka qofka vote ka bixinaya inuu ka hubsado vote-kiisa wuxuu bixinayo si waxa uu doonayo madaxda doonaya ay u hagaagto dimuqraadiyadda maxaa kale dhibaatay haysta waxa kale dhibaatay in haysta dimuqraadiyadda marka waxaan halka uga socdaa go'aanka talada dhiibaya akaadimiyada dadka waxa weeye in dadka cod bixiyaasha la tababaro oo laga dhaadhiciyo qiimaha ay leedahay codkiisu iyo waxa ay doonayaan uu ku doorto qodobka labaadna waxa weeye ee dadku markay dimuqraadiyadda u socdaan in dadkii marka hore laga saaro psychology fikrad baa jirta xisbiyada siyaasigu waa ceeb xageen أنا على وراء وسياسي أنا على وراء ولا مثل الجيش حكمت كسوقها واحد كسوقها وكلها واحد يسوي حكم دوري ولا وراي واحد ليس كده دعي سياسي واتو وبيناره وكوريا تنتيس كوريا مركب ما أمسد حتى أنا وادورنا ساعة أو واد بسعطة تلا بس قبضنا وحنو بامعي مركب هراء إنه من السياسة بحيته والسياسة واقع تلا الوحيو وهذا المستقبل كذلك لو قلت لنا أيوه وهذا آيها عروتها وحي أضرنا هذا قلت لنا هدي هالكا دتكي أقوات لها دتكي إيمان لها دتكي فكر لها دتك الاحتجاج ذلك له هدي هالكا إيمان وياه ويكتري وياه تقول ترى بوصح كل ما هذا الميسي
haddaad tiraahdo ninka siyaasiga ee xisbiga jooga ama murashaxeed baarlamaan dooranayso ama aad dowlad hoose dooranayso bal u fiirsan markaad dooranaysaa maxaa lagu soo doortaa maxaa looga calacalayaa ninka la doortay marka hore see loo soo doortay maxaa lagu soo naqiyey haddii aan halkaa la soo xulin qof alla ka cabsi leh iimaan leh lexajcala u leh fishan dheer leh ummadda wuxuu talaya haddaanad soo naqayn dee mahadin maysid ilan tiin baad beeratee marka waxaa loo baahan ku talinayaa in dadka la dhacsiiya markaa wax soo dooranaysaan dee wax warsan la soo doorto laakiin hadday tahay yaa u dusdus badan yaa halkaa wax ka soo marorsan kara wallaahi waa libaa xorga kala wajiiraya xaafadaha kala wajiiraya dee meel gaari mayno dadka la sugayina waxba noqon maayo waxaan xoojinayaa mar labaad qodobka talada ay tahay dadka la dooranayo waa in marka hore lagu doortaa wax laga doonayo tasdaxada soo jeeday haddii dimuqraadiyadda doonayo waa in dadka wixii ahlul xil wal cib ama diin lagu tuko ama iimaan lagu tuko ama la xajara lagu tuko rayid warba inay noqdaan dadka meelaha talada ee siyaasadda ee xisbiyada laga wada ay tahay isku heli mayno siyaasaddu waa ceeb oo waa wax haddana waan u dhiibanaynaa arrinka haddana wax wanaagsan aan doonaynaa isku heli mayno talayda dimuqraadiyadda taasaan ka odhanaya tamaamul daadejintana mid baan ka odhanaya waxay nagu jirtaa xaalad dhaqan oo Afrika oo iska leedahay oo ah odayga una la gaaro waxay nagu dhacaa wasiirka barasaabka ama gobolka xukuma ka degmada xukuma qof haddii uu muraad yar leeyahay muraad yar oo weynayba ma la joogsanayo ilaa odayga la gaaro madaxweyne anigu intii Soomaaliya qaranada jirtay xogaal baan haytaa madaxweyne ka joogo isla dhibaato isku mid ah haysata waxa weeye waxay diidanahay dhaqan ahaan jaranjarada heerarkeedii kala dambeynta inuu qof wada mas'uuliyadda in leeyahay in lagu aamino lagu ekaado ayaa la diiday deetana waxa dhacaysa maaha waxa u baahan tahay in la hubiyo ma dadka baawar jooga madaxweynaha diidan inay cid kale tala soo talada urursanaya mise dadkii baan ku iimaan qabin wixii madaxweynaha ka sokeeyay halkaas ay su'aashu jirtaa ay u daadiga la tirade anigu waa aragno waxa qaba boqolkiiba 80 dadka ayaa aaminsanayn ilaa halkaas lagu gaaro waana fikrad dhaqan oo waxay ahayd geedka odayga loo geeyay hebel muxuu yiri suudaan muxuu yiri intii dambana dictatoriyada u dhacday boqolkii sano ka horeeyeen gumeysiga way noo tirnay barasaabka hargeysa la gaaray dabeetana awoodda filmaysa xitaa dadka xilka loo dhiibay laftooda kalsoonidii ma wada haystaan oo malaga yaabaa inuu qaac wax ka siiyaba oo jiito laakiin waxa weeye taana waa inuu bedelaado aynu ku siinaa baawarka dadka gobolada jooga dhibaarmanada wasiirada ilaa degmooyinka si ay hore noogu socdaan marka labadu waxay u baahan yihiin in dadku dib isugu noqdo waxay doonayaan arrintan isdhexgalka ummadda social cohesion waxay inaga xumaatay intii uu soo kacay lacagtan la helay daro 700 marka laga bilaabo ee ay carabtan agteed taajiriinta noqotay ayaa ummad badan oo dadkeena carabta u guuray waxaan kala soo noqonay dhowr wax carabta mid waxa weeye dhaqanka qabaliga ah markaan xaga tagnay waxaan carabta ku faanaysan magaca qabiilka oo la baxaysa hebel Hadramawti hebel ala Saudi deetana ninka waxa mid u barbaaray reerkoodisna hebel ala geele hebel ala qura inuu dib basaas soo isticmaalo waxa kale oo kaga dayanay maadaama isku dhaqanahay islaamka iyo dhaqanka qabiilada iyo caadooyin badan oo wadaagno waxaan kala soo noqonay isolationka family ah markuu ninka soo noqdo waxa carabka oo inaad dirtu guursaa oo kuwa faana dabeetana horta waxa la kala xirmay xilliga dadka 700 ilaa 100 waxay ugu horeysay dabeetana reer wali waa isku horta isku imika dadka talinaya ee carabka jooga haduu afarta jir yahay ama ka jir hooyadii abi waa maadeer xaafada ku kala ka badan ma yaqaan dadkana iyagu ma ugu fariidsada iyagu ma daacada fahmigooda dadka kale way dumanaya iyagu qaato iyaga wada iyagu baa is amaana mid walba suudaaya oo gaar u samaystay dabeetana waxa weeye isolation ka sanad kala kala markaas oo kala oodan marka hore waa dhaqan aynaan hore u lahayn hore waxay u lahayd iyadoo Soomaalida geeska isu gabadha kala guurista isdhex gasha kaftanta waxay doonaysaa media isu marso kala duday xidhnaashaas uu keenay arab badan colaad badan isku dhac badan muxuu nagu beeray
magaalooyinkii loo badegi jiray in xaafad waliba si caqaar hoose loo kala duwo oo beerta hebel ama meesha loo degay kala jirkiiyo kayso waa dhibaato mustaqbalka aad iyo aad inoo soo socoto oo baahan in dagaal badan laga galo oo dadka kor loo qaado oo la sameeyo waxyaalo badan oo wax ka bedeli kara goobo lagu kulmo naadiyayaal sports wacyigelin guud idaacadaha iskuullada waana si daro يعني كلا قوضة كانوا رعي وفوقها social cohesion روح يمر يوم تدرس مركز يقانا مثلا إن كهال كان كنت دقن حافظ لك تنين كان مسلاح إياك دقن شيخ مدر وحلقة يا با إنه مسميه إن كشايرة جوجا أما كان نيجيري جوجا أو إنترنت إيه ما غير مع جوجل فيسبوك ولا كل أي كلا هذا ولا كلا بس ودلوقتي أنا لا هاي واحد بعنا cultural refusion هاي مقولينه سأل واحد يقولنا وحيانا كلا بدو بس نحاس ويا ترى بحن مت كلا أنا فيصل دليله وشيء وأوكي إنه الحب دلوقتي لكن متكون حسين والله أنا سؤال أنا سنة بتشري أنا وضع سعيد هاي الموكل مرة عين وأنا شري سؤال واحد نقول واحد فيصل بسنة سوا نقوى لبعتين إنه حللوا باهر وقت يقدر يشوفه مثلا دولة المكتوبة كل مياه أنا قاعد أيضا تذكر كنا كفتة حق كل مياه معارض حافظ أساس فلان أنا خلينا هو مقلسان وادي مقلدين حنون كذا واسحي مرة كذا حتى اللي جستان عامها وادي مقلدين كنا صح ما لكن مرة نبغى هذا الله حكومة كل ما أنت شوفتها مياه ذلك واحد وين كتير فيصل ما أنت عناتها أنا لهاي بار مرينا واحد بدل بدل كترت واحد منو يكلميه مرة واحد بسنة إنه الشيء dhibaatooyin kana aynu sheegano laakiin lama qabo saaxiibka in niyad jabka ah على واحد على كان مجريها توحيد كلاه يبقى يقولوا ورقي من عايات إلى هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته